madasha xisbiyada ayaa saacadaha soo socda ku dhawaaqi doonta go'aano ka dhana dowladda dhexe ee Soomaaliya oo la xiriira arrimaha doorashooyinka guud ee dalka sida warkan uu ku faahfaahinaya Axmed Maxamed Ibraahim. waxaa maanta lagu wadaa in lagu soo gabagabeeyo dalka Turkiga shir ay iskugu yimaadeen madaxda ugu sarreysay madasha xisbiyada qaran kaasoo looga hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka. shirkan ayaa la sheegay qodobada laga soo saari doono ay salka ku hayaan go'aano ka dhana madaxda dalka ee ku aadan siyaasadda amniga iyo doorashooyinka dalka ka dhici doona sanadka soo aadan ee 2021. madasha qodobada ay soo saari doonto ayaa qaybo ka mid ah waxaa looga dalbanayaa sida ay sheegeen xubnaha madasha in madaxweyne Farmaajo uu fuliyo qodobada ay ku heshiiyeen isaga iyo madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo matalayay madasha xisbiyada qaran isla markaana haddii aan la fulin sida ay saameyn doonaan madashu guddi doorasho ka madax banaan dowladda. madasha ayaa sidoo kale waxa ay soo jeedin doontaa in la xaliyo khilaafka u dhexeeya madaxda dalka iyo kuwa maamul goboleedyada dalka ka jira si saamilada siyaasadda Soomaaliya ay u helaan olole doorasho oo ku filan. doorashada dalka ka dhici doonta waa inay ku dhacdaa xilligeeda isla markaana ay ka soo horjeedaan sida ay sheegeen madashu wax waliba oo keeni kara muddo kordhin siyaasadeed. arrintaasna waxay abuuri kartaa bay yiraahdeen qalqal siyaasadeed oo aan la maadin isla markaana dalka geli doono jawi ka baxsan midda haatan ay tahay. sidaas waxaa sheegay xubno ka tirsan madasha xisbiyada qaran. mahadsanid Axmed. booliska koonfur galbeed ayaa sheegay inay gacanta ku dhigeen nin doonaya inuu isku qarxiyo gudaha magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay. Farxaan Maxamed Xuseen ayaa ka waramaya. taliska booliiska maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya ayaa magaalada Baydhabo ku soo bandhigay nin sida la sheegay doonaya inuu isku qarxiyo dadka magaaladaas. saraakiil ciidan oo ugu horeeya taliyaha qaybta booliiska magaalada Baydhabo, gudoomiye ku-xigeenka gobolka Baay iyo mas'uuliyiin kale ayaa ku sugnaa goobta lagu soo bandhigay ninkaasi qorsheynaya inuu isqarxiyo. ninkaas oo magaciisa lagu soo koobay Isaaq ayaa saraakiishu waxay sheegeen in lagu soo qabtay howlgal ay ciidamada ammaanka ka sameeyeen xaafad ka mid ah magaalada Baydhabo. ninka ayaa waxaa la sheegay inay ku xirnayd jaakad waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey isla markaana uu ku hubisnaa qoriga AK-47 ah. taliyaha ciidamada booliiska magaalada Baydhabo Mukhtaar Ibraahim iyo gudoomiye ku-xigeenka gobolka Baay oo si wadajir ah warbaahinta ula hadlay ayaa sheegay in Isaaq uu doonayay inuu shacabka ku nool magaalada Baydhabo isku qarxiyo, hase yeeshee ciidamada ammaanka ay gacanta ku dhigeen. mas-uuliyiinta ayaa dalbaday in la dhiirigeliyo oo la abaalmariyo askartii ku guulaysatay fashilinta qaraxaas iyo ninkaasi doonayay inuu isku qarxiyo shacabka ku dhaqan magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay. taliyaha ayaa sidoo kale warbaahinta u sheegay in uu taliyaha qaybta booliiska magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay oo warbaahinta ugu warbixiyay ninka doonayay inuu isqarxiyo. daraadiyo hasuubiyan inay kan oo mayleeraas iskar hiisfado oo muto Soomaaliyeed iska gareeyfado muduus waliba gurigan oo ka geysan raasan afar qasadood leh markuu si ka dagaalamo meel waliba si dilaw ka dilka raasto ku dhamaad ku baad inuu is dheerahiifaday oo mayleera ciidamada Soomaaliyeed booliiska mayleeraas koorta ka suubiyan farmasuuno badan qaabo badan oo mayleeraas nimankan naftiisa laga aniis ummato Soomaaliyeed dhabaatay isu faday gaar ahaan koonfur galbeed reer Baydhabo isu dhabaatay faday farmasuuno badan kulan oo mayleeraas la xaqoobadi usiir ka tiin baragaasano tafriyo mayleeraas waraysi soodii qalabta isu dhabaatay faday ummato Soomaaliyeed ka dhabaatay faday reer koonfur galbeed ka dhabaatay faday sida mayleeraas miina bam jaakadan oo waliba ka hilinya qaraxga iyo gurigan kaga oo mayleeraas ilaahay galan hagili tawfiiqdan ilaahay waafaji oo mayleeraas inay ciidamada booliiska galantiyo hagala oo hadda mayleeraas dawladda galantiyo ka jar walina leena mayleeraas inay waafaji doon shariga ummato Soomaaliyeed isu dhabaatadan jeysada faday isu dhabaatadan jeey hadii ilaahay. waxa kale gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Baay Xasan Ilkacsi oo isna warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu ka warbixiyay ninka ay gacanta ku dhigeen isla markaana ay ku xirnaayeen waxyaabaha qarxa, isagoona sheegay in sargaal ka tirsanaa kooxda Al-Shabaab isu soo dhiibay ciidamada dawladda. mayleeraas guri iyo farqasood iyo boorsadii oo ummatada kale ay fadhiiso ma guuleysay walaasna horta ka soo bixi shacabka iyo marna ciidamada booliska gaar ahaan ciidanka booliska saraakiisha runtii mayleeraas nimankan oo qawaarijiinta xasuuq badan iyo ka jeeshay magaalada Baydhabo Soomaaliland ka jeeshay gaar ahaan Baydhabo sanadii una taadamni sanadaan dama marna bulshadii booliska iyo man shaqeeyna boqolkiiba boqol marna yaa marna wada shaqeeyaan
dhibaato kasta iyo wadaan marna kordhagayaan ila raayis tan yoo shalay ma xalay marna wadanka suuqan marna boolistaas ee booliska kharalasi ma qosadaan dawladda Soomaaliyeed saraakiishi oo boolista gaar ahaan ku furgalbeed gobolka Baay iyo nay askarti arintanka guuleysati inay la dilacsi waayo marna muraalka ka faylaada askariga marna dadka nabadiidka marna boqolkiiba boqol iyo dadaalaan marna boqolkiiba lambola ka dhigaan tangal marna halay markii hayti la xisaay 45 daqiiq laga miire gacmo dheer la raw yama isku dhigay meel raayis meel la raw idaala ma on korsan meel 15 kilometer magaalada jarta runtii marna walbadan oo aframisyon ay ku halno khawarijintii marna dalkan oo hamaleegayaan ruuxan isu soo dhiibay laamaha ammaanka magaalada Baydhabo ayaa magaciisa lagu sheegay Aadan Ibraahim wuxuuna ku hubeysnaa qoriga AK47 iyo agab kale sidoo kale taliye Mukhtaar ayaa saxaafadda u sheegay in Aadan oo sanado badan ku jiray al-shabaab uu ka howlgali jiray gobolada Jubbooyinka ee koonfurta Soomaaliya ugu dambeyntii taliyaha ciidamada booliiska magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay ayaa shacabka magaaladaasi ugu baaqay inay la shaqeeyaan laamaha ammaanka si looga hortago falalka lidii ku ammaanka xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay dagaalkii dhawaan ka dhacay Balad Xaawo sida warsusareena subaxnimo Maxamed Cali Maxamed oo warkan ku faahfaahinayo xilli dhawaan dagaal u dhaxeeyay ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya ee la geeyay magaalada Buulaxaawo ee gobolka Geda iyo sidoo kale ciidamada ka amar qaata wasiirka amniga Jubbaland uu ka dhacay inta u dhaxaysa magaalooyinka Mandheer iyo Balad Xaawo ayaa arintaasi waxa siyaabo kala duwan uga hadlay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ugu horeyn Senator Axmed Nadiir oo ka tirsan aqalka sare ee federaalka Soomaaliya samar ahaantan laga soo doortay deegaanka ayaa sheegay nasiib darro ay tahay in Kenya ay soo adeegsato Jubbaland isagoo sheegay in wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Jaran isagoo ka hadlayay gabaad maamulka markaasi ka howlgala magaalada Mandheer ay weerar ku soo qaadeen ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya waxaana nasiib darro ku tilmaamay in Kenya ay weerar ku soo qaado gudaha Soomaaliya isagoo sidoo kale sheegay inay mudan tahay in laga hortago dhibaato walba oo shacabka soo gaarayo oo ku aadan dhanka Kenya kaga imaanaya iyagoo kaashanaya wasiirka amniga Jubbaland oo baxsad ka ah dawladda federaalka ee Soomaaliya sidoo hadalka u dhigay runtii arrinta Balad Xaawo ka socotay ilaa shalay iyo maalmahanba ka socotay waxaan isleeyahay qolooyinka daba dhilifka u noqday Kenya Cabdirashiid Janan iyo madaxweynihii hore madaxweyne ku-xigeenkii hore Maxamuud Sayid Aadan runtii waxaan ku tilmaami karaa niman daba dhilif u noqday dawladda Kenya runtiina ay dhibaato 8 sano shacabkii ay soo xukumayeen ay maanta ku hogaamiyaan hoobiyaal iyo gantaalo yani oo guryahoodii ay gubaan dagaalna ka dhex sameeyaan ayagoo ka soo dhex dagaalamaya Kenya xuduudka Kenya uga soo duulayana Kenya soo nasiib darro aan ku tilmaami karayo runtii arrinta Jubbalandna kulley wax badan baan maaragtay aan ka ogahay xogaalna aan ogahay raggan hadda khadka ku wada jira intooda badanna dhinaca kale waxa isna ka hadlay arinta dagaalka ah ee ka dhacday magaalada waa dagaalkii u dhaxeeyay dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo Jubbaland ee ka dhacay magaalada Balad Xaawo iyo ciidamada halkaasi la geeyay xildhibaan Cabdirasaaq Axmed Maxamed Jindi isagoo sheegay in nasiib darro ay tahay deegaano xasiloon in ciidamada lagu daabulay mar ahaantana shacabka dushooda lagu dagaalamo waxa uu sheegay in dawladda federaalka ee Soomaaliya kolkii ay weysay ama ay geeweysay halkaasi musharax taageersan dawladda federaalka ee Soomaaliya oo kursiga ku qabsan madaxweyne Madoobe ayaa waxa uu tilmaamay sidoo xildhibaanka hadalka u dhigay in deegaanada laga bilaabo colaad oo shacabka lagu barakicinayo waxaan ku tilmaami lahaa khalad dhacay iyo nasiib darro waxaan ilaahay ka rajaynayaa inuusan khaladkan sii soconin ee laga daba tago laakiin waxaan rabaa inaan sida saaxiibkeen Senator Nadiir uga jawaabay aad uga gidsan inaan uga jawaabo meesha dhibaatada ka dhacday dhibaato annaga aan aasaasnay weeyaan oo faraheena la galnay maxaa Jubbaland bay ka tirsan tahay Gado iyo Buulaxaawo ay ka tirsan tahay muddo dheer la soo dhaafay wax dhib iyo dhibaato ka jiray ma jirin ciidamada qaranka ee loo diray Buulaxaawona loo diray xuduud ma inaan difaacaynin dibna kama jirin ee dadka deegaanka meesha deganaa iyo Jubbaland inay xasuuqaan oo la dagaalaan oo nidaam dawlad goboleed oo meesha ka jiray mudabana dhisna inay burburiyaan because madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu fikirkiisa ka gidisnaaday systemka meesha ka jiro oo bay ku kala gidisnaadeen dhawaan waxaa dagaal u dhaxeeya dawladda federaalka ee Soomaaliya ciidamada ay geysay magaalada Balad Xaawo iyo sidoo kale kuwa ka amar qaata wasiirka amniga Jubbaland wuxuu ka dhacay magaalada Balad Xaawo iyadana haatan magaaladaasi ay ka taagan tahay xaalad bini'aadanimo iyadana mas'uuliyiinta maamulka ay ku baaqayaan in gargaar degdeg ah laga soo gaaro shacabka magaaladaasi
taliska militariga Soomaaliya ayaa ku dhawaaqay dagaal ka dhana dagaalamayaasha al-shabaab ee xilligan ku sugan deegaano ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose. Liibaan Nuur Xasan ayaa faahfaahinaya. taliyaha ciidanka dhulka iyo saraakiil uu hogaaminayay oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka ayaa gaaray difaacyada hore ee militariga Soomaaliya ay ku leeyihiin duleedka degmada Hawdhiigle ee gobolka Shabeellada Hoose. Generaal Cabdixamiid Maxamed Dirar oo qudbeynayay ciidamadaasi ku sugnaa Jiida ayaa ku wargeliyay inay u diyaar garoobaan howlgallada uu sheegay in lagu qaadi doono goob kasta oo ay dalka ka joogaan dagaalamayaasha al-shabaab. taliyaha ayaa ciidamada u sheegay in halka ay joogaan aan la sii fadhi doonin isla markaana laga doonayo inay ka qayb qaataan howlgallada uu sheegay in dhawaan lagu qaadi doono al-shabaab isagoo ku dhiirigeliyay in al-shabaab aysan lahayn awood ay ku hor istaagaan haddii ay ku dhaqaaqaan. waxaan xukunku canaasirto meelaha tabar inaad afka kabaysaan waxaan doonayaa haddii Allah awood leedmo xaalad baa lagu jiraa diyaar garow inaad gashaan dhaba waa inaad diyaar garow dhaba gashaan halkaan la fadhiimayo dhaqdhaqaaq baa la samaynayaa operation baa la qaadayaa haddii Allah awood leedmo cadawga in dalka laga sifeeyaa la rabaa dhammaan ciidamadu waa howlgalayaan ciidamada howlgalayaan ka mid yihiin waa inaad marka u diyaar garowdaan inaad howlgallada ka mid yihiin inaad deegaanada tan aad ka sifaysaan canaasirta meelaha ku dhumaadaysanaysaa raba waana inaad geesiyaaltiin inaad isku kalsoontiinna waana laakiin waxaan rabaa inaad ka sii badisaan waa ismaqlaynaa Soomaa inaad ka sii badisaan baan rabaa ku dara moralkiina la korgeeya jaarki waa laydin kordhiyay Soomaa dawladdu 4 saac waxay ku howlan tahay oo u soo jeedaa ciidanka inay awood saarto inay mushaarkooda kordhiso inay qalabkooda iyo tayintooda kordhiso way ka go'an tahay madaxweynaha iyo prime minister kuba idinkana inay ka muuqataan raba sida la idinku howlan yahay oo la idin rabo in la idinka hormariyo wax kasta inaad idinkuna uga hormartaan baa la raba inaad dalka hanataan baa la raba. Hawdhiigle waa degmada kaliya oo al-shabaab laga qabsaday intii ay jirtay xukuumadan waxayna ka mid tahay magaalooyin badan oo dhaca koonfurta Soomaaliya kuwaas oo al-shabaab ay ku dhiiradaan inay ka fuliyaan weeraro toos ah iyadoo ay xusidu mudan tahay inay martigelisay marar badan intii ay maamulayeen ciidamada dawladda Soomaaliya. madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Cabdicasiis Laftagreen ayaa ballanqaadyo muhiim ah u sameeyay bulshada ku nool degmada Diinsoor. Cabdistaar Xajacle ayaa warkan eegaya. kadib markii maalintii shalay ahayd madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagreen uu ka qayb galay caleemasaarka gudoomiyaha degmada Diinsoor oo ay soo doorteen golaha deegaanka degmadaasi ayaa waxaa halkaasi si weyn loogu soo dhaweeyay madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagreen. madaxweynaha ayaa sheegay in degmada Diinsoor ay qabto baahiyada adeegyada bulshada oo ay ka mid yihiin waxbarashada, caafimaadka, bixinta mushaaraadka ciidamada, waxaana uu tilmaamay in loo baahan yahay in sida ugu dhaqsiyaha badan ay wax uga qabtaan arintaasi. Laftagreen ayaa tilmaamay in dawladda federaalka ay gaarsiin doonaan in bulshada ku nool degmada Diinsoor ay u baahan yihiin adeegyada muhiimka ah ee degmadaasi kuwaas oo sheegay in ay kala kaashan doonaan cid kasta oo garab ku siinaysa. sidoo kale waxa uu sheegay inay muhiim tahay in maamulkiisu ay bixinta mushaaraadka ciidamada maamulka koonfur galbeed Soomaaliya. runtii waxaan la sheegay degmada Diinsoor baahiyadeeda waxaa lagu soo koobay 4 laakiin marxaladda maanta lagu jiro Diinsoor baahideeda 4 iyo 5 iyo 10 ay kulli waa ka badan yihiin. Diinsoor baahi badan ay qabtaa oo ay uga baahan tahay in lagu garab istaago ugu horeyso isbitaalkii, biyihii, dugsigii sare, amnigii, dhamaystirkii ciidamihii reformka lagu suubin lahaa oo mushaarka loo heli lahaa iyo inay helaan iskool dugsi sare kala helahane dugsigii hoose iyo dugsigii dhexe iskoollo lacag la'aan oo waxbarasho firi ah. dawladda koonfur galbeed meel kastana waa gaarsiinaynaa, doolarka iyo international communitygana waa gaarsiinaynaa, annaga dawlad ahaanna waa u istaagaynaa, dawladda federaalkana waa gaarsiinaynaa. cid allaale cidda gacan lagu siinayso baahidan maanta taallo degmada Diinsoor inay wax ka qabato maalinkan inta ka noqono laga bilaabo waa u istaagaynaa, waxbaana ka qabanaynaa insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo sida ugu dhaqsaha badan yaanan u samayn doonaa. runtii waxaan laga hadlayo oo la sheegayo waa wixii ugu muhiimsanaa oo adeega bulshada ah, baahida bulshada, adeegyada bulshada oo in la dhamaystiro u baahneeday ahayd oo laga rabay dawladda oo annagana aan ballan qaadnay waxbarashada, caafimaadka, biyaha, amniga, intaba wixii aan ballan qaadnay waaye. annaga haddaan nahay dawladda koonfur galbeed 18 degmo
saddexda gobol intaba waxaan ka ballan qaadnay intaasoo adeeg bulsho inaan gaarsiino oon fulino insha allahu diinsoorna number 1 ay ka tahay abaalmarin bay u heli doontaa degmooyinka ugu horeeya soo gaarsiinayna noqon doontaa. hadalka madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagareen ayaa imaanaya xilli maalintii shalay ahayd uu gaaray degmadaasi waxaana si weyn u soo dhoweeyey qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool degmadaasi isagoona ka qayb galay xafladda caleemasaarka guddoomiyaha degmadaasi. halka warkaasi aad kala socotaan waa idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho iminkana akhbaaraadka dibadda. madaxweyne ku-xigeenkii hore ee maraykanka joe biden ayaa gulo muhiima ka gaaray doorashadii ugu dambeysay ee ka dhacday dalka maraykanka. doorashadan oo ah mid ay xisbiga dimuqraadiga ku soo saarayaan musharaxii la tartami lahaa madaxweynaha talada dalkaasi haya ee donald trump dabayaaqada sanadkan. mase biden ayaa ku guulaystay 6 gobol oo ka mid ah 14 gobol ay ka dhacday doorashadii ugu dambeysay. musharaxa kale ee dhanka dimuqraadiga ee Bernie Sanders oo ah ruuxa ugu cadcad doorashada ayaa isagana la filayaa inuu ku guulaysto gobolada Colorado iyo kan laga soo doortay ee Vermont. musharaxa ugu codbata doorashadan ayaa bisha November ee sanadkan la tartami doona madaxweyne